فرين ما نمك ودري عشان هذا والله أنتي نربضن حاجة عشين قبل ضعيفنا قرستان قبل مسكيننا قرستان ومسكح على قبسن كرا والله أنا ما عندي شيء نعم نعم كسي عدد تهم كل شيء أو أي ك أنا كل شيء وكلا بالوجو قاتي وايو ناس حوار سنة ما حد شيء سنة من كيف حكي شيء سنة عنكوري الباب كحرة الله بسلام مرة نعم ضعيفنا لك عرلا ضعيف تاعي نو هدين عادي ضعيف كنت حي وهذا بنت هذا إيه رميسنته أبو حكوا صوص على بنت تسكنوا رميسنته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا خالق ميل والباجوكتين واني سلامينا كسر دوادا channel كينا إيه جي يفتنا marka ku soo dhawaad dadka nagu cusub baxanina walaalahayga qaaliga meel walba waa joogtiin hadaa video ku cusubtiin subscribe ku noo saara baasha cas xaga hoos weey naga qariya marka aad iyo aad u maastinka balaalka na furo channel kalena ha iloobin oo family-ka ah family walaalnahay ka family ha haladan family-ka naas la joogno haduu la yiraahdo kaana hadaa subscribe ku noo saarto waa si jeclaan marka aad iyo aad u maasantahay inta video-ga daawanaysid inta daawanaysid thank you very much أنا بمساتين مركب فيديو جماعة وحواي وحويان وأهين ولاهي مرجلين حدين لهيان أو فيديو أنا صوتا أنا ماكو أركي channel ماكو أركي مركب channel كا عن كداوني حاجة مثلاً صدقنا الفيديو جبا ساتات لكو أركتين بوا أهين وحويان نحدين وضطويان حويان نين نحاسكي سأجوبتي مركب وحين دريسين إن ندريستا نرد عوضة wuxuu ka sheekeynayaa in sanadkii dhacday iyo sidii uu dhacday iyo waxyaabihii ka soo gaaray marka video-gan nala daawada waa arin naxdin leh marka Jamaal muu daawan waan u sheegay una fiican waa daawaday ima yar marka daawaday marka in nala daawada shootinkii uu dhacay bishii 3 2014 bishii 3 dibkiina wuxuu dhacay 2019 bishii 11 hada waa 5 sano 5 sano saddex arur ilaahay uu nasiib ma sha Allah من براساس بيجي له حاجة لوكس السعيد ما شاء الله هو هتهدي مرك واجب بريء قبل ولي مغرب ولي وقتي أي وقت لو يصير خسنجرت يعرفت هذا أسور جالس لكن ما أنت عيادة كنت لك تاني شيء كم لا لو شيء صدق يكون صدق هي أخبار بسور هذا نسمع ده شكل هذه وشيدان جيرنا الله عليك ninka shaqay waxba ku uma maqnaan maalintu maqan yahay daniisu ku maqnaa waa bilcaan sheekadeedu bay ay soo qaaday waxaana ayada marka ayadan naga dhaxeeyay mise dagaal ma jirin waqtiga tagaysana ayada qoslaysa iga tagtay waqtiga imaanaysana qof bedelna imaada aniga ma qasab imaad ay maatay labada saac oo subaxnimo sax isbedelkina labada saac ilaa 3 saac u dhaxeeyay انت اللي كركرينه marka waxaan noo sheegtay markay imaatay jawi kale la imaatay isbedel aad aragtay haye عرفت انه اسم حواي waxyaana loo joogin ilaa waqti qof xanaaqsan wala inuu dadaro waay ugu baa iska ma kan adii isbedel yar dareen sax yani gacan qaad sameeyna rubaxna ma tuurin waa daran taayna ma dhihin qof bedelan inuu markuu arkay aniga waqti ayada waan dhalnaa biyaan soo dhaamiyay qoyti waad garanaya tuuba kala aad tuuba kala biyo ka soo qaaday reerkii baa carruurta soo u sikarisay trayan soo sameeyay ayra darnay agtii barkan dhigay joodari nafar aday nin gurigiisa ma garan gambar mu ku fariisana wixii uu yaalo koor imaam ku sallina la nafarkii isku tuuray qofkan intaan maqnaabo ilaahay kuma daran isbedelkii biyihiisu iska sii karkarsanayay tabkay shidad haye aniga tuum markay ugu jirin waa ka sii tagi lahaa toonada ugu jira hadaan qala sameeyay dileen waan ka sii tagi lahaa ilaan meel wax ku sameeyaan hay inna bahayrat wax cabsi iyo wax irdad qabto mala ma qabin ana xageeya saafiya iska hab qofka cabsi ka qabo biyo lagu qarqaranaan ana isdhiila waan carar lahay oo ka tagi lahaa ma lahayn aadiyad way dhacday sax toona daan qabo waan carar lahaa sax qoftuhuna aan qabino iska lillahi oo habeenkii arutiisa la bariyo ayadana shaqo ka imaato qof bedelan markaan arkay ani ma bandalnay marka xoolo nasaan la dhididka ka jaw aadiya joodari baad ku seexatay gar waxaan qabay garan finaashaatiga meel iska dhigay garantii macbiistii aan soo baxay dhinaca soo tuuray dhanka bidaxa u saaxiday sax dhanka midiga biyaha iga maan doonaan waa 3 saac markaas waa 3 saac waxna alxamdulillah ilaahay habeen iga dhigay aadiya islaamka isdhex ordaa waaga soo bariyay markaas la isdhex qaaday gaari jidka maraan baan marka biyaha noo sheeg sidee u dhaceen waad jiftay ma gamaada ma gamin qof dhidisana aadiya dhididka kugu jaban baa u jiifay waa soo jeed صح
hadeen inta la waagan xawa nasashada uu iska maxaasan joodarin oo ku jirta markintina waan dheeraysan tuhum bay ugu jirin gurigiisa jooga marka bii baa falu waday maxay leeyahay jidda hore markay kaliya iga dhacday dhaawac kaliya ka bilowday gacantan sansana u jifay dhankana biyaha ka bilowday awood baa u dhacday qofka halkan taagana taa iska celin waay war maxaa si ka maxaa diidilidana hal yaraa soo haray inda oo wajiga iska galiya waa wajiga qayb fiican iyo firirkan iyo xabadkan arkaysan waa firir waa hal yaraa ku soo haray ayadana waxay dhahday soo booday iskaga celi aan marka ayada kood hore ugu shubtay cadaab nin ugu dhaxrido baan way ka wad awood bash awood iska daay hortii hata isana saaga la xwandiyo waxaan ku fiicnaa guriga ma jirin barandaan jiifay guriga inay cararto way ku dilina isku yeey wax xirlaan ilaa markii hadda ilaa isku tutoosi barandaan jiifay hor lay ka booda ama carar albaabkii bedkan ka baxay sax bedkan ku dhacay taxi iska socda isagoo muslim uu leeyahay waris adoo markaas bedelan intana ay go'an sax ilaa halka ay biyo ku soo istaagaan biyo me weeba gooday sidana kale noqoto sax kabta arkaysa ina noqoto بس واحد ما لين بقف كيني مقارك اللي جسيبه ضب لا دحقلي عادي قف يارك وين حوي ارججشي عدين قالك وحتي كل شيء معها قفل بنو يكرنه عادي انت كوبد انت تكسيلي وانت سكرت ويصادف صح اما السف الباب كيدو يسترجي استالك عافماتك يحرر دغحلي صح كدب الباب كدي واردي مركو يارك واسس البابكم بوفيده ما نسي دحجير حول ولا قوه الا بالله العظيم وارين لقى نحو والله بالله هذا في هذا وحنا ما كجرا كور هو يجي ويلك ولا هرت إلهي عافمدا سيو فيديوغا waxay ku tusaysaa inuu wali qof qalbi fiican yahay wajhahay oo jida qof tigan oo areerkiisa iska dhaqanayo oo iska afgaaban oo waxba ka ogeyn because qadii runtan leeyahay sheego qofka markuu wax sameeyo oo uu si diyaarnaya wax walba oo u diyaarsiya mar walba waxa ma ogeyn soo markaas soo sheegay wuxuu yiri waxba ma aragtay waxa ma jirin just maanta markay maqnayd dumar loo soo sheekeeyay been baa loo soo sheegay waatan jirtan waa wax soo koro dumarkan asxaabta leh oo wax u soo sheegay ninkaaga saan sameeyay ninkaana qofkan la soo ninkaana waxaan guursaday oo xabadna ka jirin xataa cadeen ma haya hadda maskiinkan waa kasaasa loo gubay maxay ka faa'iideysaa aakhir wallahi billahi ku sugaysaa su'aashaas ha u maleyn god maalna gali doonta kaligaagi masar iyo waxaan marba la gali doonaa hay horta mid bin ogeyn mogtahay dad badan ba maartay xanuunsanaya marka gabadha horta xaladeeda ma ogin ma ogaan karo laga yaabay inay masar qura ahay laakiin xaga maskaxda ka xanuunsan tahay dad ba ana isqanay carruurna waa isla la galeen war horta sheekada horta 5 sano ka hor bay macnaha wax ka wada carruur isla dhaleen waa dad isla degnaayeen oo baxay oo soo noqday idan way baxday waji fiican iga tagtay waji waxa ku soo noqotay wax kale because qof wax ku soo dhaadhiciyay adduunkan waa jira dad badan aragnaa oo dad inay waxba ka dhaadhicinay ku sheegayaan hebel saan u dumarku qura maaha nimanka waa dhinac kasta way tahay wax weeyaan waa lagu diri karaa samahan of course waxa way halo badnaado dhinac dumarka laakiin ragab waa jira because waxa way dad ba Janis Gadska halmaamin dad ba wax iska rababo inay dad adduunka dad muleenis ma dad ku raaxaysto inay dad kala tagaan dadka kugu dhawaan ugu daraan adduunka iska ilaaliya maxaa asxaabta waa asxaabna mar way fiican yihiin marna way xun yihiin asxaabtii kala ah laakiin asxaab oo saan oo kale hada fiir gurigii dhanay burburiyeen maskiinkan jirkiisa hada fiiray ma cadaalada saan oo kale jirkiisa hada wax burburiy jirkiis fiir kaliya ilaaha ka badbaadi fiir hada uu si dari kara taa wajiga taa waa si gaari karti hada gacmihii ma wajiga gacantu saaro mulaysa gacantii dhan ma wuxuu of course binaadana tahay wax kulul hada mar ku soo dhaco hada dhan waa boodaysa waa nixaysa waran laakiin waxa ka sii daran hada wixii ku dhacay gubtay laakiin waxweyn naxdinta ay ku reebtay hada arintaasi iyo jirkiisa uu weligii allihii maaragtay u noqonayso maaragtay xasuus alxamdulillah ilaa hada weligii ilaahay horta qalbiga hada ilaahay ka badbaadi meel qaara daran boo hada at least inta waa darneed laakiin funaanada lagu qarin karaa waxyaalo badan lagu sheekay markasta uu meeranayo ama muraadisku ay weligii ma ilaawayo weliba caruur ba isu leeyihiin marka gabadha waxaan u maleynayaa maxay ahaydeen horta anigu waxaan lahaa walaa qof kasta oo maanta xaasa ma aragtay ninkaaga hadii wax kasta lagu sheego waxaad indhaha ku aragtay mooyaane oo aad ila ma aragtay aad
hubisid mooyaane maaragtay dadka waxay ku sheegayaan ha rumaysan ninka ilaahay ka sokow ninkaaga haddaad maaragtay in badan aysa deganadeen carruur soo dhasheen adaa dabeecadiisa maaragtay yaqaana qof kale kaagama sheekeyn karo qof outside maaragtay wuxuu sameeyo way jiraan niman badan oo maaragtay dumarka khiyaameeyo oo maaragtay taas lama beenaynayo laakiin ilaa maaragtay xadka biyo iyo qofkii adana qofka isla deganeydeen maaragtay si kastoo ku xumeeyo waxa la qaatay iska dhaqaaq ilaahna ku reeb adana horta dumarka Soomaalida way ugu badan tahay biyaha iyo biyo kula la soo cararno iyo waxyaalaha laakiin haddana waxa jirta waxa soo kala jacayl maaha like qof baa ka oranaya maaragtay you know waan jecelahay qofkaas waan necbahay in uu qof kale la hadlo oo ama dhex galo ama qof lala soo hadlo maseerkaasi waa xanuun maaha maseer caadi ah qofka haddaad jeceshahay waxaad la jeceshahay wax fiican wali diinta islaamka waxaa lagu yiri hadda guurka iyo wixii ka hadlayso waa wax qof isla seexana iyo waxa soo guurka whatever cadeen maxaa lagu yiri afar qof marka la dhahay diinta islaamka maxaa loo adkeeyay afar qof diinta islaamka xataa way adkeysay hadda qof wax ku qabatid waa afar witness ama afar qof cadeen inay arkeen marqaato afar marqaato inay joogaan way loo adkeeyay hadda saan simple u tahay qof kasta wax baa lagu dadaadin lahay mid ninkan waxaan ku yidhi waa waxbaa loo soo sheegay wiizoon because uu arkay isbedelka ku dhacay isla markiiba because mar waxaa jirta dadaad ka xun waxaa ka xun markii nolol fiican dad ay qabaan dadaa ka xumaanay waxaan se u burburinaa weyga u burburin lahayn see waaye waa dhinaca laga soo galaa marka waa ka fiirsatid qofka jilicsan laga soo maraya mar walba qof jilicsan labada qof la jilicsan hadda walaashay fiir ida dhinac jilican dumar u soo sheegeen wax kurkuteen u sheegeen waxa laga yaabaa wax bahbahaada miskiinkan hadda ku kaliftay inuu saa u guwaan anigu marka fariin baan nimanka u diray Soomaaliyeed walahay intiina badan waxa jeceshiin gabadh daciifina gursataan gabadh miskiinana gursataan oo maskaxda laga qabsan karo walahay runta in sheegaya naag bay ka sii adag tahay ku sheegaa oo ay ka kulushahay oo kale baa lagu qaatay waayo naagtaas xogaysan maxaad sheegaysaa nimankii wax ka sheegaysaa waxaan ku yiri albaabka ka xiranaysaa qof kasta danteeda taqaana naagtaasi dumarkaasi noocaasi maaragtay anigu waxaan la talinayaa nimanka Soomaaliyeed haddaan gabadh doonaysaan gurigiina idin ilaalisa caruurtiina maaragtay daryeesha gurkiina sirtiisii wax kasta ma ku sheegaa idinka qoreed ku ekaato gabadh fariida oo indhaheedu soo jeedaan oo aan dadku maskaxda si easy looga qabsan karin taas doono laakiin mid adigu been u sheegto oo ay beenta rumaysato oo adigu aad khiyaamaysay anigu markii wiilkani gabadh daciif u guursaday wax saasa waayo wuxuu yiri anigu video waa si daawaday anigu waa laakiin hadda wiilkan oo kale anigu kuma dambaabiyo waayo wuxuu yiri yaraan buu guursaday labaduba 5 sano ka hor bay isguursadeen marka haddaba haddaba waa aragtay waa dhalinyaro laakiin waxa sheegaya inta badan dhaqankan Soomaaliya waxaan arkay nimanka inta waxa jecel yihiin gabadh maaragtay guriga lagu xareeyo iska aamusan miskiinadka ah hadda adigu maskaxda ka qabsatay oo adigu beenta u sheegtay ogow qof kale brito maskaxda ka qabanaya adaa lagu soo diri karaa taasoo kale qof dabeecadaas oo kale waa laga fogaadaa waxa la doontaa qof guriga maxay haday iyo afaaraheeda oo dhan aan loo soo dhawaan karin taas maaragtay fariid ah laakiin intiina badan waxa jeceshiin maxaa idinka soo noqonaysaa walahi marka anigu taamalihi anigu hadda ma blame karin laakiin jees waxay ahayd fariin oo bay ahayd waa shay muhiim ah waxaan dhahay dad badan waa raali gelin maxay dadka raaliyo oo korku eegeen hadalku ugu socodnay waxaan rabaa guriga markaa ka bixid waxaan rabtaa adoo inaad ku soo noqotid adoo shaki qabin maskiinka hadda fiir uu soo noqday shaki ma ka qabin because qof wax soo sameeyay mar walba waa cabsiya ku jirto baqaya is ilaalinaya difaac 24 hours ku jira difaac laakiin maskiinka difaac ma ku jirin iska daacadu ahay ilaahna caafimaad siiyo horta anigu waxaan ku faraxsanahay wiilka waxa ka muuqata iimaan maaragtay waad aragtaa soo hadlayo inkastoo 5 sano ka soo wareegtay laakiin ilaahay waxaan halkan ugu dirayna maaragtay magaciisa maan maqal laakiin de kala haduu videogan arko anaga waxaan leenahay ilaahay maaragtay niyada maaragtay ku sii dhiso ilaahay khara ku siiyo video kale waxa sameynaysan video oo wareysiga oo dhanna xagga hoose aan soo dhigaya xagga hoose aad ka heli kartaan channelka aad ka daawan doontiin adduunyada ha insha Allah channelkaas laga daawado videoga anaga waa soo koobnay laakiin intii badneed hadaa rabtiin inaad daawatiin ama sheekada dhan fully ah si ogaataan channelka xagga hoose aan soo dhigaya ka daawada
marka dumar iyo ragba walaahi isu dulqaata dadka waa dulqaasho kaliya maaha waa dulqaasho kaliya maaha haddii wax dulqaasho kaliya maaha maxay ma even hadda qofku degafo maaragta waa inaad wixii hubisa man ka ha waa wixii ilaa Just be hubisid patient. hade wixii waa la hubiyaa wax ma ka jiraa wax ma ka jirin because waxaa way soo bixaysaa wax la qarin kara maaha wax la qarin kara horta qof xaas kala guursaday ama qof kale la socdo wax qarsooma ma wax banaanka soo ha baxay ilaa ay soo baxdo maaragtay because wuu soo baxaya idami hadda fiir hadda kasoo qaad ana hadda badanka gurigaa jooga yeah ama hadda u bad shaqada intii shaqada jir waa ogtahay laakiin ka waran hadda 24 hours aan maqnaanahay qof badan baa isbedelaya. waa la dareemayaa qof Yeah. wax qof kale ka dhaxeeyo telefoonka waa laga socdaa hadduu laba telefoon wata xataa si kasto waa la ogaan karaa wax qarsooma ma waa run maxaa dhaca wuu maqnaanayaa wuxuu dee waa aadayaa- waxaan idhi maaragtay xaaska dee adiga inta qof kale marka kaaga sheekeyn lahaa maxay ahayd xaaska og wax kasta og dabeecadda ninka dhaqanka hadduu isbedelay waxyaaba badan marka hadda anoo kale dee even haddii wax laysoo sheego maaragtay de because hadda waxaa laga yaabaa gabadhaas hadda oo u sheegtay waxaa laga yaabaa wiilka inay jeceshahay ha dad waa laga yaabaa wiilka intay jeclaatay oo ku yar yar iga tag inuu dhahaa laga yaabaa oo marka waxay dhahay saas miya okay ii kaadu yar ay dhahday markaas waxay u tagaysaa gabadhii saas wiishukaas wax been ku aqrinaysaa maadaama bay videoga sheekada ba maaragtay de wiilku uu sheegaya wuxuu leeyahay wax allaale wax kama jirin waad aragtaa wuxuu yidhi anigu waxaa shaqo kuma lahayn haddaan guursadana dee familigaaba ogaan lahaa wax kasta marka waa sii ogaan doontaan haddaa videoga daawataan insha allah marka annaga videogan maaragtay intaasaan walaalkeena waxaan dhahnaa ilaa caafimaad oo ku siiyo marka nin waxaa tahay qaali ah waa ujeedaa iimaankiisa adag marka walaal halkaan waa kaa salaameynaa hadduu ilaa yiraa ilaane iimaanka hasii adkeeyo hadduu ilaa yiraa asxaabtii halkaasaan video ku dhameynaa maanta I hope inaad maaragtay maxay ahayd cimri qaadato ay maxaad ku cimri qaata ha maaragtay isu dulqaata wax hubsada waa la hubsadaa mar walba naag daciifnana ka carara waa runteed naag daciif ka carara hadday adiga daciif ku tahay oo adigu beentaada ay rumaysato ogow waxaa kugu soo socda beenta dadkana waa rumaysan doontaa marka sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu